وناشا النبي عليه الصلاة والسلام قوم إن إيمان دونان سفهاء الأحلام حدثات الأصنام قال أقل قد وريرسية أو وحي كهر لا يبقى تفهم سنين ما أنت هدي الدين كل شيء هيان ما فهم سند iyadoo loo diyaar garoobayo dagaalka kooxda al-shabaab iyo sidoo kale difaaca shacabka Soomaaliyeed ee Soomaaliya saraakiisha ciidamada ururka 49 ee magaalada Baardheere ciidamada ku dhiirigeliyeen dardargelinta howlgallada ka dhanka al-shabaab muddada lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan laba xidigle Sheekh Ismaaciil Sheekh Abdi Qorrax ayaa ciidamada u sheegay waxay la dagaalamayaan inay yihiin qawaarij nabigeena naxariistii nabadgelyo dushiisa ee ka dardaarmay isla markaana shacabka Soomaaliyeed dibkooda ka dulqaadaan si ay nabad ugu cibaadaystaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan ku dagaalamayn waa dagaal xaq oo jihaad yaan la dirirayna khawaarij baan la dirirayna yaa khawaarij la dirir macnaha la dirin illa Allah nabigeena amr alayhi salatu wasalaam waxa la khulafaa ur-raashidiin midkaan salbigiisa dhabarkiisa midkaan dulqawaysar kuwa ku jiro yiri kuwa dhabarkiisa ka imaan doona ku jira yaa ummadayda qaribi doona fasaadin doona yiri dhibaatayn doona bal fiirsaya saasoo nabigeena uga dardaarmay oo noo sheegay nabigeena alayhi salaatu wasalaam qowm inay imaan doonaan sufahaa al-ahlaam xudathaat al-asnaan qala aqligooda uu wareersay oo waxay ka hadlayaan baad fahamsaneen maanta haday diin ku sheegayaan ma fahamsanid haday ku sheegaan inta kugu maxadarayaan meeshaas xarada boodkeeda 9 caruur ay ku gowracayaan hay wacdi uu sheegay oo cilmiga wallaynaya مسلم يالي هرت المسلم مسلم المسلم يدي ولساني سما مسلم وقفك gacantiisa iyo carabkiisa muslimiinta ay ka nabad galaan islaamnimo uu ninkan sheegan kara ma leh marka waa wareerka asaga ah inuu ninka diin ku dhax wareero diin uu ku sheego shayga diinta ugu darnaan oo gal hay'ad shayga diinta ugu daran maxay tahay waa qof muslim oo la dilay nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri laqatlu mu'minin waahidin ahwanu ala allah min zawali dunya wa ma fiha hal ka mu'min oo la dilay adduunyada lagu dhex dilo dhiigiisa lagu duldaadiyo lagu dilo iyo adduunyadan oo dhan oo gadoonta ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu qiimo badan halkaas qofka fiiriya ninka maalinka marka 100 qof 200 500 600 xasuuqaya hadana diin ku sheegan oo diinta ku dhex jira ka war nabigeena marka saas ku tilmaamay waa sufaa al-ahlaam aqligooda waa wareersan diinta bay ku dhex waasheen diin bay sheegayaan diintana waa burburinayaan wixii diinta laga ilaalin lahaa ayaga ugu daran oo ku dhex jira xudathaat al-asnaab buu yiri sanadkooda waa yaryahay waa niman dhalinyaro ah waad aragteen hadda waa inta ugu badan waa niman dhalinyaro ah kuwa fasaaday odayaalena waa ka buuxaan laakiin xoogooda waxa weeye la qalda oo aruurinayaan waa dadka dhalinyarada quraanka waxay u akhrinayaan buu nabi kaleey sallallahu alayhi wasallam saad u akhrinaysan ka daran qiridiin waad nacaysan yakhrujuuna min ad-diin kama yakhruju as-sahmu 'an al-qaws ama 'an ar-ramiya diinta waxay uga baxeen leebka qaansada markii fag laga sii say fag uga tiraha uga bax waxa way saas kale uga baxaan thumma la yacuudun man ku soo laabanaya diintu waa ka baxeen wax diin oo leeyihiin mar kitaabka ay sheeganayaan waxay sheegayaan walaa yatajaawazu iimaanuhum xanaajirahum nabi kaleey sallallahu alayhi wasallam iimaankooda islaamnimada iyo diinta ay ku sheeganayaan halkaas kalxamay ma dhaafsiisna war ilaahay in ku dhaareen qof islaam oo diin oo kalxamaa u dhaafsiisanta miya qof islaam inta soo qabtay gowric oo la ilaaha illa allah laba xidigle Cali Usmaan Cali taliyaha ururka 49 guuta tobnaad qaybta 43 ee ciidamada xoogga dalka ee magaalada Baardheere ayaa shaaciyay in howlgallo lagu bacsanayo al-shabaab laga bilaabi doono dhammaan deegaanada ay ku sugan yihiin cadawga wuxuu sidoo kale hambalyo u diray geesiyaasha qaranka ee dhawaan iska difaacay dagaaladii cadawga ay ku qaadeen Bariire iyo degmada Awdhigle oo diin ku salaysan waay nabigeena wuxuu yiri ninkii ay dilaan ayaga ama dilo يا الله أنت جنة أصلا توير نبينا عليه الصلاة والسلام عرفنا إن أمتقنا أن أتكيسرنا وورجت اسمه برنا إنه دجال غير بالله صقلني وقبل كان إلا يلقى صوب لو عرف كيسة أنت ركبا بأمتقنا كل شيء ركبا بأكل وعمي بقى تجرافة كي أجر تقورد أقرأ إن تفو مريس سيرات مركب عرفنا نمان كنا عاس والله ديردين كورب ساكن تاع حبط اسكو بلو لا عرر كورب نين اللي يجي جنة كوجل دوق هدا ديشنا جنة كوجليسا هناك عرت wax saxaba laga ma carrayso carri laba jeeraba adigu jid fiican ba ku taagay daadima tashiid ba tahay wax sheekaana ma wax la sheego diinteena islaamka haysan noo sheegto waa ka adeegtii ba huba inaad ka adeegtiin ba huba waxa yeeleen waxa way shayga ku socotaan xaq waa
عربنا إن دلك النجا يدك النجا الدين تنا كدفاعنا هذا يسكت ديان ومتقنا السونك وأبنا وحيالا السمايان لكن منو السمايان كرام بيلها جوجان بقول تقدرنا إلهي كبر مر ربنا أن أبنا بينك عن سرنا وحن آدي تهنيت يبوغادين أو قدرة عيدا كحوق دلك الصوماليات أو قدر ماشي اللي أودق فرحت بينات هاي عيدا دلك عيدا حوق دلك الصوماليات هنا خوارج أي صوران أيوة ولي وحي على دلك يكوج أرجعيان وط قرح وأرجعين واي قرح بيوطا أيها دبص عزومه ذي قرح جكتو ير أسوأ كمان بقى محاول بقى أسوأ دبص عز مركو قرح بقله يعبط كوب بالله قرح صف جرافين كانوا جرافين هيا حبط إنا سكك جلسال روا إنا كعرت ما إنا كعرت ما هذا سيسع إنا حبط كوب على واحد صح ما وأكتي مركز سي إن ما كأي سمايان نقدر تودي بالملاجين باور بررين ماشي بيسكت دين ولا أوجا وحي كدع ماشي صح كدع هذه بقوهم بلياننا أنت لما تنا شهدوه إلهي نحرس جن إنه جيان إلهي أقبرنا أنت ضاوع أو كل ضاوع أنت إلهي إنه بقرنا إنه إلهي ودي سننا وعرفنا مركا كده يشوا عنواي عيدا كحوق الدلك الصومالي وحاول ساك ماشي مرة يقفل بوقرن كره سيف في عن أو ونكسن أو هب في عن بقص عدا قوارني وجبوا أيضا جبوا إن شاء الله تعالى أنت قدام بيسنا ولا صوت تردونه عمر عيدروس أحمد مقالة باردة قبل كاغدو